السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ونكسر أصحاب تسكورة ما في عتين عافيمات كينا waxaa dira jeliya khayr badan iyo bashbash iyo barwaaqo ramadaantiin waa sii gabagabo intaasoo dhan video waxba ma soo duubin oo mashquulsanaa marka alxamdulillah caafimaad uma ku maqnayn iyo khayr fara badan marka asxaabta waxaan muxuu hayay ka cudur daaranaya maqnaashahayga aan tobigna soo gelin bisha ramadaan adu 3 week waxba ma soo duubin aad baan mashquulsanaa maxay doona ramadaan qofka bini aadamkana de aan horta boqol qof ma noqon karo intaan karayna waan wadnaa alxamdulillah marka igaraal noqda mawduucideeni baan insha Allah dib ugu soo noqonaynaa maantana ayaan ka bilaabi doonaa hadii la yiraahdo mawduuca maanta idin sidana waxa weeye aan muxuu haye horta qofka aan garan channelkayga ku soo dhawow magacaygu waa Fatuma Nasir Ali waan ku soo dhawow channelkayga Fatuma Resilience gacmo furan iyo qalbi furan ayadi ku soo dhaweynaya marka waa kaas ana iloobina mar walbana channelkayga subscribe gareeya u sii share gareeyana asxaabtiina mawduuca maanta aan idin sido wuxuu ka hadlayaa sida loo jaro nidaamyada fikrada xunxun de bani aadamku nooc walba uu leeyahay oo maxay ahayd horta adduunyadan hawla kama dhamaato san mar walba idin sheegay laakiin waxa loo baahan yahay nafteena train garayno nafteena wax u sheegno nafteena aan hagno nafteena aan wax walba ka dhaadhicino wanaag ah ya lama waaye wax ku khalkhaliya mar walbana laakiin haddana wax loo baahan yahay in aad adigu aad isku daydid inaad wax fahantid wax dhageysatid wax baratid oo yaani wax walba ka hor imanaya aad u heshid xalkeega oo maxay aanad sii raacin de way jiraan dad maxay yara khalkhalay laakiin haddana aad u baahan tahay inaad dib uga soo laabatid inaanad nolosha ka dhicin ama aad ii sheegay aanad naftaada aanad dayicin marka mawduucan maanta aad ayuu muhiim u yahay xiisana uu leeyahay muxuu haayay in waxaan jeclaystay inaan dadkayga la wadaago wiil iyo gabadhba cidii u baahan inay wax yaani ay wacigooda kor u qaadaan ama ay wax fahmaan ama wax bartaan inay ka faa'iideystaan muxuu haayay mawduucyadan ama meeshan aan ka soo gudbiyo ama channelkaygana soo dhigo sidaan idin sheegay mawduuca maanta aan ka hadli doono waxa weeyaan sida loo jaro maxay fikradaha xunxun ama qaldan qaabkan u jir lahayn waxaan ku soo koobayaa 5 qodob 5 qodob oo ii sheegay kala ah mid koobaad waxa weeyaan hababka fikirka xun oo maxay ahayd oo number 1 wacyigelin iyo qofka naftiisa u baahan tahay 2 waxa u baahan tahay ii sheegay caqabadaha fikirka xun inuu qofku fahmo oo ii sheegay de uu horta darso waxay tahayba dadku intooda badan ma yaqaanaan qodobka ii sheegay muxuu haayay saddexaad isaguna waxa weeyaan dib u habaynta inaad dib u habaysid markaad fahantid inaad dib u habaysid maxay fikirka qaldan ka afaraad isaguna waxa weeyaan inaad ku celcelisid hadal wanaagsan waa qaabkii aad ii sheegay aad u bedel lahayd waxaan oo dhan ood ku celcelisid hadal wanaagsan naftaada u sheegtid oo maxay saanad u faafin adiguna fikirka qaldan waayo war iskuma haysid intooda badan dadku war iskuma hayn marka fikirka qaldan ay dadka gaarsiinayaan isagoo ku dhex jira qofkani laakiin dadkii kale sii saameynaya macnaha marka adigu isku celcelisid adigu aad hagaajisid hadalka wanaagsan naftaada aad u sheegtid dadkana wax wanaagsan wad u sheegi kartaa ee ka wada ka shanaad ee ugu dambeeya waa foojignaanta inuu qofku mar walba uu ka foojignaado ama digtoonaado uu de iska ilaaliyo ii sheegay maxay ahayd hadallada xitaa ka soo bixi doona ama yaani de waxaan wuxuu baahay practice in lagu celceliyo habeen iyo maalin waxaan wax lagu qaban kara maaha yaani daqiiqado maalmo waa wax weliga inta nooshahay oo dhan aad u baahan tahay inaad dhigatid sida quraanka wuxuu u baahan yahay maalin walba akhridid hatta haddaanad akhrinin niyadaada waad ku haynaysaa hadda salaadiiba tukanaysaa maalin walba imika salaadoo kale waa wax lagu maalin walba aad tukanaysaa 5 jeer ya saa salaada aad u tukanaysaa 5 jeer maalin walba ee maskaxdaada niyadaada uga dhaadhicisay ayaa lagaaga baahan yahay fikradaha qalqaldanna in aad ii sheegay aad iska ilaalisid oo naftaada maalin walba aad u train garaysid maalin walba aad u sheegtid ya hadalka ka soo baxay inuu noqdo wax fiican haddaad fikir aad gudbinaysid fikir fiican uu noqdo haddii aad wax ka hadlaysid wax wanaagsan uu noqdo haddii kale aad iska aamustid adigoo ii sheegay naftaadana dhibin dadka kalena aan dhibin waayahay waxaan dul istaagayaa qodobka koobaad oo ah wacyigelinta waxaan uga jeedaa qodobka koobaad wuxuu yiri muxuu haayay marka fikrad xun ay timaado ama ay soo baxdo istiraahadid naftaada u sheegtid muxuu anigu ma ihi qof yaani waxaan qaban kara mar walba waxaan qabto wiiga xumaadaa
haddii aan waxaa sameeyo kolley wuu xumaan doonaa, haddii aan ii sheegay is idhaahdo horumar samee kolleyba ma gaari doono halkaasoo dhexbartankuyaga xumaanayaa, haddii aan is idhaahdo halkaa tag kolleyba cid heli maayo ay caawisa, haddii aan is idhaahdo maxaygan qabo kolleyba ii hagaagi maayo. dee yacni waa fikradaha qaldan muxuu qofku iska dhaadhicinayo muxuu ahaa naftiisa uu beenta ugu sheegayo oo isagu isliidayo qofkani hoos isku dhigayo mar walba uu is-anaananayo ama uu ii sheegay wuxuu leeyahay waxan ma qaban karo, ma samayn karo, ma kaniyeyn karo, ma qaban karo. qofka bini'aadamka wuxuu ugu talagalay inuu qabto wuu qabanayaa, anaana kula taa. haddaad ugu talagashid inaad si fiican ugu fikirtid ood istirahdid waxaa iyo waxaa waan qaban karaa, waanan gaari karaa, waad samayn kartaa. waqti wuu qaadanayaa waxan, laakiin waxa loo baahan yahay in adigu horta niyad wanaagsan ad waxan aad ku qabanaysid, yacni fikirkaaga inuu noqdo mid saxsan. maahin inaad mar walba aad yani aad dib isku riixdid, mar walba aad tirahdid waxan ma qaban karo, kan ma samayn karo, kii kale ma qaban karo. waxyaabahaas waa waxyaabaha bulshada Soomaalida inteeda ugu badan dib ugu dhigtay, dib u riixday. maxaad wax la qabsan kari laayay in qeyrkood u dhaafay imika dee muxuu haaye wadamada imika wadamadan maxaa ahaaday dee jaarkeena ah yani horumarse u sameyneen waad yaabaysaa. xataa wallaahi been idinma sheegaya isagoo qofku ii sheeg aan dee wax saasaba aanan hayn, haddana wuxuu isleeyahay halkan ka bilow berri buu gaari doonaa. shirkado xitaa waxaan la yaabay imika halkan America yacni 1800 la aasaasay ilaa imikadan shaqaynaya. maxayna ku soo gaadheen? waa fikirka saxsan iyo maxayd qofku inuu is aamino inuu waxan qaban karo, waxan uu samayn karo, waxan uu gaari karo. waxan la qaban karo horta adduunka ma jiro, waxan la hagaajin karina ma jiro. haddii uu qofku isagu uu niyadiisa u sheego ka dhaadhiciyo wax wanaagsan wuu gaarayaa. waa aniga fikirkayga Faaduma ahaan, aniga fikirkayga waa sidaa. laakiin idinkana waxaa idinka rabaa inaad mar walba fikirkiina hagaajisiin, wacyigiina kor u qaadiin, kelmadaha qalqaldan ee naftiina uga dhaadhicinaysiin. yacni waa waxyaabaha dib idin riixaya ee horumarkiina idinka hor istaajinaya, naftiina ii sheeg hagaajinteeda iyo qurxinteeda xitaa dib idinka riixaya. xataa waxaa jira dumar badan oo wallahi idhaahda kol haddaan hooyo noqday muxuu haye maxaan ku falay inaan hagaajisto, maxaan ku falay inaan koofeer tago, maxaan ku falay inaan naftayda aan jiim u galo, maxaan ku falay inaan yacni niyad iska dilayaan. marka lama baahna niyad iska dishid, lama baahna inaad dib isku riixdid, lama baahna inaad fikir qaldan maskaxaada ka dhaadhicisid, lama baahna inaad hareerahaaga soo gelisid dad xunxun ama fikir xun kula wadaagaya. looma baahna maxay inuu xitaa jaarkaaga uu noqdo jaar xun. markaad aragtid ka fogow, aad aragtid inuu isaga laftirkiisu uu fikir qaldan uu la wareegayo adigu waxa leeyahay wixii naftaada hoos u dhigayaba inaad ka fogaatid weeyaan. adiguna ay ka bilaabanaysaa number 1 inaad naftaada wacyigeega kor u qaadid oo hagaajisid oo dhinaca wanaagsan aad ka eegtid oo ii sheegay aad isku daydina wax walba hagaajisid. qodobkii saddexaad baan u galaynaa markaan soo dhaafno wacyigelinta iyo caqabadaha fikradda qaldan. ka saddexaad wuxuu ku leeyahay waa dib u habayn ayaa imanaysa markaad labadaa had ka soo gudubtid. marka dib u habayntu maxay ku leedahay yadna? waa inaad naftaada si daacad ah aad wax ugu sheegto, aad ula hadasho, ood u dhiirigelisid, ood ugu tiraahdid maxayday yacni ma qaban kare halkaad ka leeda tiraahdo waxan waan qaban karayaa, waan samayn karayaa, waxani waxaad iska riyo, waan hagaajin karaa, halkan waan bedelayaa, naftaydu way weynaanaysaa, way koraysaa. yacni waxyaabihii kugu soo dhacay oo dhan had u qaadatid maxay heeday muxuuha cashar ood yacni wax ka baratid ood naftaada soo hagaajisid ood maxay heeday dhinaca saxda ah aad ula dhaqaaqdid. markaad istirahdid qofna ii sheegay xitaa halka isku xidhid kuma oranayaan ka soo bax halkaas. way jiraan dad maxay dad asxaab aad tihiin ama familigaaga oo ku oranaya ka soo bax halkan waxa way hagaagaysaa, laakiin adiga waxaas kuguma socdaan. waa adiga ka soo go'aysaa. adiga markay ka soo go'do ayaad ka soo baxaysaa xaaladan aad isgelisay iyo filinkan iyo maxay hayd hawadan kale aad ku dhex jirtid iyo maxay haday naftaada beentan ay kugu sheekaynaysi waxan oo dhan waad ka soo bixi kartaa. waa qofkii iimaan leh ee raba naftiisa inuu kor u soo qaado, ubadkiisa wax ku soo kordhiyo, noloshiisa wax ku soo kordhiyo oo wax hagaajiyo, wax fahmo, wax barto, noloshiisa soo ururiyo uu kow ka soo bilaabo amaba una kow ka soo bilaabo khibrad ahaan wixii ku soo dhacan uu soo qaato
uu haddana soo istaago mar labaad uu yidhaahdo way kan yaa oo naftaada aad hagaajisid ood wax u sheegtid khaladaadkuna way dhacaan dadka bini'aadamka khalad ay galeen bay isku canaantaan 10 sano oo ii sheegay maxay ahayd noloshooda ka mid ah oo ay saameynayaan hareerahooga dadkii joogay oo dhan waxaas oo dhan looma baahna waa inaad naftaadan aad ka adkaatid inay naftu ka adkaato maaha waa inaad naftaadu ka adkaatid ood mar walba karbaashtid ood soo istaagtiraad xataa hadday sariirta isku dhajinayso waa inaad istaag tiraahdo naftaada u sheegtid saacadda ku buuxisid second ood soo kicisid yaa waxaan waa maxay ahayd waa waaya aragnimo aan idinka warramayo wallaahi mahan casharo intaan soo diyaariyey aan meelahan kasoo gurta internetka ma aha waa yacni waa experience aan ku soo noolaa anigu ayaan idinka soo gudbiyaa channelkaygan dadka qaar waxa u haystaan intaan cashar soo diyaariyeen halkan soo dhigo waxaan waa wax bani aadamka uu u baahan yahay oo dhan oo u baahan dhiirigelin saxa qofku inuu helo yaa buugaag intaan soo akhriyaan halkan idin soo fadhiista maaha sax buugaag waan akhristaa wax waan bartaa wax waan hagaajistaa laakiin nolosha saxda ah experience-ka qofku markuu la soo kulmo uunbuu halkan soo fadhiisan karaa yaa uu halkaa intuu soo fadhiisto yidhaahdo anigu wixii igu soo dhacay dadka kale iga dambeeya sida uga taxadiri lahaayeen ayaan u sheegayaa in halkan ula soo fadhiisanaya qofku inuu yidhaahdo yaa waxaa yidhi waxaad wanaagsanna walaalkaabaa lala jeclaadaa waa loo gudbiyaa keliya qofku maaha inuu yidhaahdo ii sheegay muxuuhaa dee maxaa iga galay laakiin wixii wanaagsan ama uu qofku uu experience haysto ama khibrad ahaan ama nolosha uu kasoo bartay inuu dadka kale u gudbiyo waa muhiim oo waxa weeyaan dadka kale jiilka kale kaa dambe ay caawinaysaa nin iyo naag waxay doonto ha noqoto inkastoon anigu aan dumarka gaar aan u taageero laakiin haddana ay u baahini jiraan dee rag iyaguna iska liita oo iska dulman waa qodobkii 3aad isaga halkaasaan ku dhameeyey kii 4aad baan u galaya ka 4aad isaguna wuxuu yidhi naftaada ula hadal si naxariis leh ama degan ama positive ah oo wax wanaagsan u sheeg maalin walba iyo habeen walba si ilma aad jeceshahay oo dhashay oo kale ilmahaaga wax wanaagsan baad ku tiraahdaa hadal wanaagsan baad ku tiraahdaa hadallada xunxumood ka dhowrtaa naftaadana sidaas oo kale ola macaamil habeen iyo maalin naftaadana waxay xaq kugu leedahay haddii miisaan badan ku saarmay inaad jiimta tagtid haddaana jiimka tegi karin gurigaaga ku dhex daanstid dumaroow ood ii sheegay baruurtan iyo dhalmadan kadib idin saarantay aad iska ridiin oo gurigiina dhexdiisa haddaanad awoodin inaad jiim tagtid ama caruurta cidi kaa reebin inaad gurigaaga dhexdiisa jiimta ku samaysatid ama aad exercise ku samaysatid music iska shido iska ciyaar adiyo ilmahaaga exercise-kaa samayso haddii aad awoodin inaad jiim tagtidna waad tegi kartaa diet aad samaysid waxyaabahaas waxay ka mid yihiin qofka inuu naftiisa fikradaha qalqaldan ama maskaxdiisa ku wareegaya ka saaraya inuu qofku jawigiisa bedelo inuu naftiisa hagaajiyo waxay ka bilaabmaysaa inaad naftaada runta u sheegtid hadal fiican ku tiraahdid ood ii sheeg si tartiib ah aad ula macaamishid naftaada ood dhiirigelin siisid habeen iyo maalin oonad iska dhigin bukaan halkaa jiifa oo waxba qabsan karin oo bilaa faa'iide ah yaa maskaxdaada waa waxaad u sheegtidun maskaxaaduna waxay u baahantay inaad quudisid hadal fiican aad ku quudisid ood dhegaysatid codkaaga gudaha kasoo baxaya ma is dhegaysanaa horta codkaaga gudaha kasoo baxay ma is dhegaysataa waa maya de waa cararaysaa habeen iyo maalin shaqo maad ku mashquulsan tahay dadka bini aadan loo shaqaynayo aan dhammaanin shaqadoodu gurigiina ubadkii waxaad ku mashquulaysaa odagaaga iyo gurigaa cunto la kariyo guri laga hagaajiyo jadwal naftaadu ma male gebi ahaanteedaba waxaanad ku soo koobtay 4 gidaar iyo fikirkaa qaldante ee maskaxdaada aad gelisay ee khalkhalisay marka lagu leeyahay qofka dumarka ah markay ilmaha koobaad ay dhasho nafteeda markay khalkhasho qofna caafimaadkaaga kulama oga adigunba is og adiguna haddii aad wacigaaga kor u qaadi weydid cid kuu og ma leh haddaad xanuunsatid iyo haddaanad xanuunsanna xataa wallaahi ninka guriga kula jooga yaa caruurtaada aabahood ma kala jecla isagu naftaadana adigay ku khusaysaa adigayna ilaahay ku weydiin doonaa aakhiro haddaad ka warhayn weydid yaa cunto la cuno keliya ta maaha ii sheegay self care ama qofku inuu naftiisa hagaajiyo waxyaabo ka muhiimsan baa jira oo qofku u baahan yahay inuu naftiisa ku quudiyo yaa hadallada wanaagsan yaa naftaada kor u soo qaadaysaa way hagaajinaysaa
ilmahaagaad ku hagaajin kartaa markaa naftaada la ciibsan hadday la ciibsan tahay ama waxba uma qaban kartid ilmahaaga iyo cidda ku ag joogtaba hadda toolana wuxuu ku arkay inta ninku naag waalan ama wuxuu ku arkay qof kadeed badan oo hadal badan oo qaylo badan oo maalin walba halkan diriraysa naftaada inaad dejisid ood hagaajisid oo fikrado qaldan aad ka saarsid oo fikrado wanaagsan ku bedeshid adiga shaqo kuu taala weeyaan dumarow waa shaqo adiga kuu taala inaad naftaada ka shaqaysid ood qabatid ood hagaajisid adiga wax kuu yaala weeyaan wax qof kale u yaala maaha qof kale oo dembiga aad saaraysidna ma jiro oo naftaada ahayn marka naftaada saa u hagaajin lahayd adiga shaqo kuu taala weeyaan marka waa kaas qodobkii afraad baa halkaa kaga baxay kii shanaad baan u galaya insha allah qodobkii ugu dambeeyey oo ah ka shanaad isaguna waa ka ugu awooda badan leh qodobka shanaad ee ugu dambeeyana waxa weeyaan foojignaanta inuu qofku feejignaado mar waliba uu taxadirkiisu fiicnaado uu dee maskaxdiisa iyo miirkiisa oo dhan soo wada jeedaan qofka waa muhiim markaad si tartiiba aad u fadhiisato ama aad naftaada u dejiso ee maskaxdaadii focuskaaga uu saaro waxyaabaha wanaagsan uu ka leexdo waxyaabaha xunxun ee maskaxda qofka isha khalkhalinaysa ee joojisid inaad raadisid waxyaabaha xunxun ee aad raadsanaysid dhex dabaalanaysid warka oo kale in maxay ahayd meelaha la isku laynayo waxyaabaha traumada qofka ku kicinaya ma aragtay oo qofku uu ii sheegay ama uu ku dhex jira bay-adan khalkhalsanay habeen iyo maalin ka shakeenaya un qabiilis cunaya ee qofka ku kicinaya xaalad xanuun waa xanuun waxaasi ee ii sheegay qofka muxuu haayay doondoonaya wax xun uun ama laba qof oo isxamanaya ama dad isla shaqeynaya shaqaale oo isxamanaya ama dad ka shaqeynaya uun xumaan oo wanaagba ka shaqeynayn waxyaabahaas oo dhan inaad ka dhex baxdid oo naftaada runta u sheegto tiraadistaji waxba kaama gelin waxan foojignaan waxaasoo dhan waad soo martay intaasoo istabood halkii ugu dambeysay baa taagantay qodobkii ugu wanaagsanaa foojignaantuna waa ka ugu wanaagsan qofka inuu foojignaado oo waxyaabaha una dhex dabaalan uu iska gaabiyo uu dib uga baxo si uu naftiisa ay u hesho nabad uu isaga khalkhalin horumarkiisa iyo naftiisa iyo ubadkiisa iyo noloshiisa iyo qoyskiisaba inuu qofku naftiisa hagaajiyo uu ka dhex baxo waxaasoo dhan waa qofku markuu foojigan yahay weeyaan uu sheekooyinka xunxun ee meelaha lagaga sheekeynayo uu ka dhex baxo waxa aan naftaada waxba kusoo kordhinayn oo dhan qofku inuu kusii dhex jira maaha uu qofku ku bedelo markaa meelaha wanaagsan ee ii sheega uu ka helayo khayraad fiican ama ii sheeg waxyaabo wanaagsan waxyaabo dhinac wanaagsan ka sheekeynaya ma farxad ka sheekeynaya ma wax la hagaajiyo ka sheekeynaya ama business ka sheekeynaya inuu qofku meelaha uu ku wareegaysto mooyaane wixii kale oo khalkhal gelinaya ama fikradaha xunxun qofka u riixaya dee qofku haddana halkii ka meeluu kasoo dhamaaday haddana dib uga bilaabayo inuu qofku dhinaca kale wanaagsan u reexdo de waa kaas qodobkaas shanaadna halkaas kusoo koobay muxuu haayay waa gabagabadii iyo gunaanadkii muxuu haayeen tobigaygan maanta de qofkii uu cajabiyey ama ka helay naftiisu ku dabaqayaa qofkii kalena de wuu iska daynayaa ee weli aan isaga dhex jira fikirkiisa qaldan ee rabin inuu wax hagaajiyo de ugu dambeynkiiyo gabagabadii waxaan odan lahaa inaad maxaad xasuusnaatid maalin kasta iyo daqiiqad kastana jabinta hababka fikradaha qaldan inay yihiin ii sheegay dariiq dheer oo soconaya habeen iyo maalin oo sanado kula soconaya oo weligaa kula soconaya oon ahayn maxaad oo dhisaysid muruq maskaxdaada ka mid ah inaad dhisaysid oo hagaajinaysid waa wado ii sheegay marar badan aad socon doontid insha allah maalmo way qaadanaysaa oo sanaday qaadanaysaa oo dee weligeed bay kula soconaysaa adigana lagaaga baahan yahay inaad ii sheegad aad markasta dooratid wacyigaaga inaad kor u qaadid ood maxaheed aad foojignaatid ood fikradaha qalqaldan oo dhan aad jebisid ood naftaada si naxariis loola hadashid waa maskaxdaada sidaad uga sheekaysid weeyaan qaabka ugu wanaagsan ugu sheekee maskaxdaada markaad wax u sheegaysid ama aad wax ka fikiraysid ama aad rabtid inaad wax samaysid dhinaca ugu wanaagsan ee nabaduna ku jirto waa inaad qaadid marka anu halkaas kusoo gabagabay maanta maxay tobigaygan waxaanad u qalantaa nabadaas inaad heshid dumar iyo ragba waxaad mudan tahay maskax ku taageerta dhammaanteen bada maskax ina taageerta oon u baahannahay maxaad inaanad wareerin mar walba aanad ku wareerin
inaad tar badan aad naftaada iyo maskaxdaada aad siisid, dulqaad fara badan aad siisid iyo naxariis. waanaad dhisi kartaa mar qura haddaad fikirtid waad dhisi kartaa maskaxdaada, fikirkaaga, nabadaada, fajignaantaada, waxaasoo dhanba waana wax qofka bini'aadamka ka soo go'a. markuu qofku waxaasuu ka soo go'o unbuu qofkaasina hagaajin karaa, fikirkaa qaldan uu ka dhex bixi karaa, uu jari karaa. dadka xunxuna mar waliba waa laga fogaadaa. meesha aad aragtid ina ii sheegay aad aragtid inaa de khayr lahayn waa laga tagaa. waxay doonto ha kugu qaadato, waxaana ka muhiimsan nabadaada iyo maskaxdaada iyo ubadkan aad korinaysid iyo qoyskaagan inay bay'ad saxa ay ku dhex jiraan. haddii aad ku dhex jirtid meel qaldan, ogow ubadkaaga iyo reerkaagii waxaan oo dhan way isla wada khalkhalayaan. sallallahu mubaarak, maca salaama. insha allah waxaan is arki doonaa maalinta ciida haddii la yiraahdo, oon idiin soo duubi doonaa ii sheeg maalinta ciida saan u ciideyno insha allah. idinkana like-tii, share-kii, comment-ka ha iga iloobina. aad baan idiin salaamayaa. ciddii aanan garanayn magacaygana markii ugu dambeysay waa Faaduma Naasir Cali, channelkaygana waa Fatuma Resilience. maca salaama. ramadaantiina khayr bay noogu dhamaatay. aad baad u mahadsantihiin.